hoggaanka xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa kormeeray goobaha kala duwan ee laga qaadanayo koodhadhka codaynta magaalada Burco. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye iyo wasiirka howlaha guud ee guriyeenta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan ayaa ka warbixiyay kormeerkan ay ku soo mareen goobaha laga qaadanayo koodhadhka codaynta doorashooyinka Soomaaliland, waxaana shacabka gobolka Togdheer ugu baaqeen inay qaataan koodhadhka codaynta. waxa ilaahay mahadiya maanta inay ka bilaabantay kaar qaadashadii gobolka Togdheer degmooyinkii waxaanu soo marray goobihii si wanaagsan bay uga socotaa, dadku kaararkii way qaadanayaan si xawliyo bay ku socotaa oo nabadgelyo ah. waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa sidaa iyo si ka sii wanaagsan inay u socoto haddii ilaahay yidhaahdo. dhammaanna shacabka ku nool gobolka Togdheer waxaa la doonayaa sidii hore loogu gubaabiyey inay kaararka qaataan subaxnimada hore 5 cisho inay ku dhammeeyaan 187 kun ee gobolka Togdheer oo isku diiwaangelin. aadna waan ugu mahad celinaynaa sida ugu quruxda badan ee ay biyuga ugu jiraan dadku ay kaarkooda u qaadanayaan. dadweynaha reer Togdheer iyo kuwa reer Hargeysa dhammaan waa inay kaararka qaataan, waa inay isabaabulaan, waa inuu qof waliba xuquuqdiisa muwaadiniinta dooranayo lagu qabsanayo kaarkeeda. goobta nimkeedu gabadha ka madaxda waxay noo sheegtay inay goob la soo bixiyey oo halkan waa kursigii dambi baa laga soo bedelay bay tiri xaggaas ay qabanayaan. halkan waxaan sheegaynaa inay أحمد سليمان عرب أحمد كافي تلفزيون عالمي BURCO TV برعو.